waa maangal inaad isweydiiso sababta aan ku dooranay sheekada ninkan balse dhamaadka waa dhab inaad wuxuun ka baran doontid kobocii xawliga ahaa ee caanbixidiisa iyo mushkiladihii uu wajahay maalmihiisii bilowga oo sabab u noqon gaaray in waayihiisa faneed fashil ku yimaado. Justin waxa uu heesida ka bilaabay wadooyinka Ontario, Canada oo ah halka uu ku dhashay. ma jirin cid aan ahayn hooyadiis oo rumaysnayd inuu mustaqbal faneed oo weyn leeyahay xilligaasi. hase yeeshee hibadiisa waxaa hormuud u noqday nin la yiraahdo Scooter Braun oo codkii ugu horeeyay ka duubay 2008 sidoo kalena agaasimay albumkiisii ugu horeeyay ee soo baxay 2009. sidaasi ayaa waayihiisa faneed ku bilowdeen Justin waxaana heesihiisu qayb ahaan ku wareegeen adduunka oo dhan. macnaha cid walba ayaa maqal iyo muuqiisuba gaaray taa oo sababtay inuu ka mid noqdo dadka ugu badan ee gobolka laga raadiyo maalin walba. waxa uu ahaa 13 jir loo arkayay Michael Jackson ka xiga. intaasi dabadeed maxaa dhacay? waa tan mid aynu isleenahay wuxuun ayay ka baran karaan heesayada mustaqbalka iyo cid walba oo doonaysa inay bulshada magac ku dhex yeelato. Justin Bieber waxa uu ku fashilmay xakamaynta dareenadiisa carada, qabka iyo xifaaltanka. cidii walba oo dhaleecaysa ayuu u jawaabay. wuxuu dhageystay kuwa doonaya inay u dhameeyaan fankiisa isla goortaana ka ficilo qaatay falalkii ay kula kaceen heer uu gaaray inuu ka baxo bilowga bandhig faneedyadiisa una gacan qaado dad ay dariiqyada ku kulmeen. waxayna ficiladaasi sababeen xitaa in jeel la dhigo. habdhaqankiisa xumaaday Bieber waxa uu sababi gaaray inuu waayo cid magaciisa iyo muuqiisa danaysa xitaa cid heesihiisa dhageysata. 12 milyan oo dislike ah ayay heshay ama la saaray mid ka mid ah heesihiisu. waa heesta ugu dislike-ta badan guud ahaan internetka. waxa loo baqay waayihiisa waxaana lagu waaniyay inuu si ka duwan midaasi u noolaado. hase yeeshee waano dabadeed waxa uu bedelay habdhaqankiisa taas ayaana u hiilisay hoobalnimadiisa. At that time I was just growing up and figuring myself out and I just happened to be doing it in a spotlight and in front of people. muuqan ujeedadiisu ma aha inaan Justin fankiisa ama shakhsiyadiisa ku warino waxayna la qumanaatay inaad maqasho sheekada fashilkiisa oo ah mid ina baraysa in qofku haddii uu dareenadiisa qaar u hoggaansamo ay halis gelin karaan jiritaankiisa.